buu imigana hormoodi yahay aan waxaan aaminsanay ninkaa Faad Yaasiin ku soo halqabsanayay inay si adag wada hadleen oo maxaad nooga tagtay halkaad igaga tagteen uu yidhi dhaqaalayagii uuna u soo diray nimanka kuwo kaloo imiga waxaad arki doonta af kale ku hadla iyaguna maalin dhaweyd inaad maqlayseen iyo in kale mooyaane ninka Fahad Yaasiin la yidhaa ayaa hadlay aad buu ugu muusanaabay wadaadada la yidhaahdo ictisaamta may ahayn buu yidhi inay kala hadlaan may ahayn inay qaar Somaliland taageeraan may ahayn oo waxba dhaamay buu yidhi wadaadadii maxay ahaayeen ahlu sunnihii baaba hadlay qoladii kale way kala jabeen inay kala jabaanna may ahayn aniga Sheekh Mustafa wuxuu ahaa ninkii igu yidhi ku biir siyaasadda ayuu ahaa deedna halkaasi waxa dhacaysa horta sideedaba ururadan islaamka cidda maalgelisa ee reer galbeedka ugu wakiilihi waa qadarna Fahad Yaasiin ayaa ka wakiila bal dib u eega waqtiyadii ay yar aawanaayeen awoodda lahayn ama ay shirarka lahaayeen waqtigii Fahad Yaasiin joogay bahaydo hore wadaadada kulkaa waxaa jira dhaqaale la soo bixiyo oo la soo gaarsiiyo intii Fahad Yaasiin ay meesha ka baxeen siyaasadii Xasan Sheekh iyo imaaraadkii ay wateen way shiiqeen wax dhaqaale oo soo gaadhayna may jirin kulkaa waxa ku kala dhacday inay iska kala burburaan oo daciif noqdaan ayaa dhacday laakiin maanta waxaan u arkayaa kulka duu Fahad Yaasiin soo noqdo in dhaqaalihii loo furayo in culimo kale oo marka hore isyar suuxinayay inay dib u hadli doonaan sababtuna ma aha Somaliland nacayb iyo maxay waa dhaqaalaha ku soo dhacaya ayaa mideeya ma aha wax mabda diiniyan oo dhabihi ma jiro mabda Somaliland oo dhabihi ma jiro waxaanad moodaa wadaadadeennan hadday tahay kuwa Sheekh Umul iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir iyo kuda isagu ninkii inanta ku soo kubsaday Kanada soo baxsaday isaga kaasi wax ka soo qaad ma laha laakiin waxaad moodaaba foxkooda maxaa la odhan jiray gaadhigan maaragtay farastameerka la yidhaahdo dhabiya lagu kaxeeyo hareeraha ayaa laga geliyaa waraaqo si uu hortooda u arko waxaad moodaa diintoodu inay ku jeedo oo lagu soo jeediyey Somaliland inay arrintoodu saaran tahay sababtoo ah maalmaha ka mid ma arkisidkii oo leh dadka muslimiinta wax lagu yeelaa Kenya maalintii dhaweydaan waxaan moodayay markii ugu horeysay arkeen mowlidlamigii lagu qabtay baan moodayay jigjiga markii dambe ma arkay qoladii kristaanka diintooda ku dhiganayaan nin kaliya oo wadaada oo ka hadli karaa ma jiro laakiin maxaa keenay inteena laga hadlo oo had iyo jeer xaggeena loo soo tusaale ahaan maalintii dhaweyd oo kale inanta beenta ka sheegeen ninkii yahuudiga wariyaha Yusuf la yiraahdo uu beeniyay yiri war waxay nimanka wadaadada been abuurka sheegaya Sheekh Bashiir iyo Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir iyo way ka soo noqdeen iyo mid kale oo waa la khaldamay bani'aadamkuna uu khaldami karaa wuuna ka soo noqdaa laakiin Sheekh Umul kamuu soo noqono waxaan anigu aaminsanahay inuu iska daneystay yahay ninka yahuudiga ka dhow runta ka sheegayo waayo arrintii beenta noqotay kamuu soo hadlay hadda ma oran war waan khaldamay raalli ahaada kulka waxa weeyaan dhaqaalihii qoladii ixtisaam hadday marka hore hoos u dhaceen waa dib baa loo dhaqdhaqaajinayaa hawlahooga way iska wadan doonaan laakiin innaga shacbi ahaan waxaynu u baahannahay inaynu ajibnaano oo il dheer loo yeesho innaga waxa la yidhaha qoladayna la joogtaa waa xarakaad aan dhaqdhaqaaq lahayn sababtaan dhaqdhaqaaq u lahayni jaanis bayna haysan ay ku dhaqdhaqaaqi karaan oo waxa ka badan culayska xagga dadku wuxuu doonayo ayaa ka badan oo cadaadis ku haya laakiin waa xarakaad ina dhex jooga laakiin dhaqdhaqaaqa karila kolka waxoogaa yar dhaqaalaha lagu soo shubana dhaqdhaqaaqooda intii hore uu ka roonaanaya kolka inaynu aad u taxadirno baa muhiima sheekhuna qolooyinkaas suuxsanaa buu imigana hormoodi yahay aan waxaan aaminsanay ninkaa Faad Yaasiin ku soo halqabsanayay inay si adag wada hadleen oo maxaad nooga tagtay halkaad igaga tagteen uu yidhi dhaqaalayagii uuna u soo diray nimanka kuwo kaloo imiga waxaad arki doonta af kale ku hadla iyaguna inaynu il dheer u lahaano ayaa muhiima sheekhu imiga wuxuu ku soo halqabsaday oo uu sheegay in markii aynu dulca tagnay haddii dadkeena dhulkeena dad kale la keeni lahaa bal sidaad u arki lahayd ayuuna yidhi laakiin anigu waxaan ogahay
waqtigaasi dadkii la keenay haba joogaan oo se doonto waa tii dad kale lagu beerayn ogeyn halkaa ka soo bilo ilaa boorabasheeda ilaa berbere shishadeeda ilaa intaasoo dhanba qaxootigii la deganaa uu ka badnaa dadkii dhulkan deganaa laakiin qoladii berigaas waxaa la odhan jiray itixaad baa la odhan jiray culimmadii itixaad dagaalka way ka soo horjeedeen oo waxay odhan jireen kuwa dulcad jooga waa muslim la dagaalamaya dagaalkana waxay ku tilmaami jireen xaaraan mustafa kaa uu maanta kusoo halqabsanayo ururkii itixaaduu ka soo horjeeday wuxuuna odhan jiray waa muslim la dagaalama dhammaantood mujaahidku gabadhoo ka dhintay ayay guursan jireen carruurtana waxbay beri jireen markii dalka la qabtay ayay iyagu dib dagaal u heeseeyeen kolkaa sheekh mustafe iyo xertiisa itixaadku shalayna may ogolayn xorayntii dhulka maantana bal ka warrama haddii dhulkiina cid kale la keeni lahaa aan aaminsanahay inuu weli halkii ka taagan yahay inala aaminsanayn laakiin ilaahiyo ayaan leeyahay kolkaa waxaynu u baahannahay wadaadadaasi oo wadaadda u shaqeeya cid kale in indho dheer loo yeesho oo laga fajugnaado hadalkooda iyo kuwa dambe ee soo socdana maadaama bajarkii hadda loo soo furay oo Fahad Yaasin iyo qadar soo noqotay innagana waxyaabo badan bay naga soo gaari doonaan indho dheer ha loo yeesho ayaan leeyahay وانا كبحي وين كسو علي oo waxa weeyaan maangala oo qof kasta uu fahmi karo uga hadlay ilaahay khayraas iyo prof imaam saciid cabdi cusmaan dadkii meeshan ka hadlay oo dhan si fiican bay uga hadleen niyow anigu wax badan odhan maayo waxaan ku sii darayaa uun sheekhu wuxuu soo qaatay falastiin inagu meel aynu dhibaato iyo mushkilad aynu kula damacnay ma jirto laakiin ninka falastiinigi miyuu ogol yahay inaynu dawlad noqono dal jira aynu noqono sheekhooda ugu weyn waxa la yiraahdaa amba culimadooda kamidana la yiraahdo Sulaymaan oo Mareykanka degan oo Mareykanka ninkaas maalin dhaweey tole madaxweynahan iyo ra'iisul wasaaraha Yuhuudda intuu sawirkoogii soo qaatay baa wuxuu yiri cadaabta hageeyo marka sheekh Mustafa uu arkay baan filayaa inuu Umar Sulaymaan uu soo qoray ilaahay cadaabta hageeyo madaxweynaheena oo sidaa u habaaray ninkaas sheekh Umar iyo jiiro waxaan arkay af Carabi ku hadlaaya oo Uhuru Kenyatta baryaaya oo af Carabi ku amaanaya oo ugu ducaynaya marka Uhuru Kenyatta ma muslim ba oo mise diinta nasaarada iyo ta waxa kala duwan yuhuuda kala duwan oo yuhuudana waa la habaaraya nasaaradana waa loo ducaynaya deeg waxyaalo badan baa muhiim in la isweydiiyo marka nimanka culimaadka u badan ee fadhida meesha la yiraahdo Kenya iyo kuwa Muqdisho fadhiyay hawiyaha u badani marka ay maslaxada dalkooga ka hadlayaan diin kama hadlaan maslaxada dalkooga ka hadlaan laakiin kuwa Soomaaliland jooga marka ay ka hadlayaan maslaxada ummadaha kale diin bay soo qaataan oo waxay dhaahdaan haddaad waxa sameysaan waa gaaloobaysaan cadaabtaad galaysaan nimankaasi markay Soomaaliland aflagaadeynayaan ay caayayaan ay wax ka sheegayaan ma soo qaataan hal daliil amba hal xadiis qofka bilaadanka ee muuminka ah ee muslimka ah laba wax buu ku soo istaagi karaa markaad u sheegto amba aayad quraan ah oo nusuus soo qaado amba xadiis nabigu yiri kaleey salaatu wasalaam soo qaado marka qofku ku soo istaagaya kuma sheegayaan inta midnaba laakiin waxay soo dhanayaan waxaan logic ba ahayn isbarbardhig ku sameeya umal baan arkayay oo isbarbardhig ku sameynayay Soomaaliland iyo dawladnimadeeda in la diidi karo laga soo horjeesan karo oo ay ummadaha kale ee reer Soomaaliland ku nool intay ka hor imaadaan ay diidi karaan dawladnimada Soomaaliland oo uu leeyahay ku waxa diideen in Soomaalidii kale la midowdaan marka muu sheegin xadiis inoo muu sheegin waxa la yaalo wuxuu inoo sheegin ninkaas ma jirto marka aanu waxaan